imisaan arkaa dhalinyaro xooggan markii xooggii hooyadood ay qaateen markay qaateen anfacaadii iyo ay qaateen hooyadood wax walba ay ka qaateen oo la soo koriyey iskeenka raaxadeedii oo dhan ay u hurtay ay ku daashay ayaa markay xoogaysteen oo la rabay inay hooyadii xambaaraan hooyadii u qabeeyaan hooyadii madaxa u salaaxaan hooyadii u riixriixaan u adeegaan khaadim u noqdaan ayay leeyihiin uf ay gacmaha ku sayraayaan ayay hooyooyinkood guulguulayaan hadal hooyadii ma dhihi karto way baqaysaa gabadheeday ka baqaysaa wiilkeeday ka baqaysaa hooyada haddii hadal ay dhahdo inuu ilkaha ka daadiya ka baqaysaa imisaanu aragnay haddana wuu tukanayaa ilaahay buu allaahu akbar u leeyahay waa xaqii koowaad xaqii labaadna waa kan way baqaysaa hooyadii wiilkeeda lama hadli karto xumaanka ma celin karto wanaagga uguma yeeri karno falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa ha gulgulin hooyada waa laba shay oo laynaga fogeeyey waqul lahumaa qawlan kariimaa qowl wanaagsan ee hooyada way mudan tahay way leedahay xaqa wallaahi way leedahay hooyada hadal wanaagsan eh dadkii kale ee aanan muslimiinta un islaamnimadun idin dhexaysay bal insaannimadun idin dhexaysaa waxaa la leeyahay waquluu linnaasi xusnaa dadka kale waa gaaladii iyo muslimkii hadal wanaagsan ku dhaha maxaa waay kelimada wanaagsan waa sadaqa miisaanka maalinka qiyaamay kuu fuulaysaa laakiin hooyadii oo kaaga dhow xaqa labaad ah ayaa lagu leeyahay waqul lahumaa qawlan kariima hadal wanaagsan oo qalbigeeda farxad geliya ku dheh in badan bay hooyada qalbigeeda murugay oo ay murugootay oo ay walwashay oo ay ooysay oo ay ceelkaambisay siday rag kaaga dhigi lahayd siday kuu korin lahayd qayrkaad uga fiicnaan lahayd siday wax kuu bari lahayd siday tarbiyadaada iyo akhlaaqdaada u wanaajin lahayd hooyo wax loo dhigo wallaahi inaanay lahayn waxa la ooyayo hadalka aan sheegayo ma aha laakiin waxaan sawiranayaa oo aan arkayaa hor fadhiya hooyooyin badan oo da' 70 80 xanuunsan oo jooga qaxootiyadii oo jooga meel runtii nabad aanay ka jirin madfuucu dhacayo meel aan hooyadii aanay heli karin wax u adeega aanay heli karin wax dabka xataa u shida aanay heli karin wax biyo u keena bal hooyada aanay heli karin biyo nadiif oo ay cabto dhoobada ay cabbaysaa meelay harsata aanay heli karin cirkaasaa u saqaf ah oo guri ah dhulkaasaa u sariir ah dhul ayay jiiftaa waxaan arkaa hooyo miskiin ah oo gurguuranaysa in ay dabshidato in ay soo qaadato weel yar in ay soo qaadato jikada ay gasho aawo ciyaalkeedii 5 ama 10 ayay dhashay aawo xaggay ka baxeen orobay joogaan oo raaxaysanayaan gabdhay u adeegayaan reero kale u shaqaynayaan miskiinkii dhashayna waa taasa halkaasay fadhida wabilwaalidayni ixsaana gaari qurux badan oo 1 milyan la gadaayo ku socdaa hooyadiina guriga u dhisi laayahay dhar buu u xiri laayahay way arradan tahay hooyadii way qaawan tahay markaad fiirisid sawirkeeda waxaad moodaa waagii dhagxaanta inay joogtaad moodaa waagii cawska iyo qashinka la saari jiray cawrada lagu asturi jiray inay joogtaad moodaa hooyadii iyadiina gabadhu waxay xiran tahay dhar xariir ah daabkeeda meelay dhigta la'dahay ilmaheeda waa kuwaana oo siday u burbuuran yihiin u quruxban yihiin waad yaabaysaa hooyadeedna waa taa miskiinta halkaas ku wayaysa آخرة عذاب بعد ذنبه والله عذاب بعد ذنبه قلنا ملقينا لا يحتى لا جويك روح والله واحد ذنبه والدكي أنا والدتي هل كان أنا كهرين ورشينا كذبينا هل كان وقاجي سياهي
والله زقوم بانو دمبي زقوم كي أكشي كينا يا إنو دمبي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وحاينو دمبي رسولك الأولى صلى الله عليه وسلم هدي ببعك من الزقوم كأدو كل مسورين لها وببع هدي المسورين لها عالم كأورنا نبقى كنا ننشره الله بالخير وقبل لها وطابي لها وإنما لها يدين الكدوة هل من أهل يأتون كل مسورين لها كورنوا ليها كالوغة نقاع النديسة قدر يقرع ذي عشد لك عنا يضل كورنوا ليها ولك أن نقول فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هل ولك تلفون هل فور والد كان له حريره